السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشر كينا أفراد كاسو كساب ساسان برشادة كمبيوتر كبلوغا إن شاء الله تعالى عشر كينا سدح قضب ومهمة أيانو هذا دونا قضب كبادي عدانا كبلوغنا وحنقونا هي عدانا لازميو كمبيوتر بدأ يسفتها وأقول استعمال الكمبيوتر كقف كله حاجرة كل شيء كمبيوتر كانوا كل استعمال الربع sidaas awgeed waxaa jira in computerka labaduna aad isticmaali kartaan isna local gooniya oo isticmaali karo ama account oo local oo gooniya oo aad u sameyn karto adiguna aad isticmaali karto account-ka ku gooniya haddaba misalna hadda aniga local kan isticmaalaya waa local account aan leeyahay mid kale inaan samaystaan doonaya markaas kale sidaan u sameynaya ugu horeyn waxaan imaanayaa halka settings customer qaab loo sameyn karo laakiin qaabka haddaan marahayo ayaan kana soo fiirinayna inta kale sidii barbaaran kartaa la baas insha Allah halkaas startiga ayaynu ku dhifanaynaa qaska baarka dhinaca bidix kadib waxaynu tagi doonaa halka local account-ka hadda magaciisa uu qoran yahay dabadda waxaan ka tagnaa change account settings halka markaynu taagno dabadeed waxaynu sii dooranaynaa halka ay ku qoran tahay family and other users markaan family and other users doorano halka ayaa iska dhig hadii uu ku furan yahay halka waxaan arkaynaa hoose meel ay ku qoran tahay add someone else to this PC halka aad kali ku siinaysaa markaad kali ku siiso halkaasi waxa ku soo bixi doona box ama window dialog box yar baa ku soo baxayo waxa tagi doontaa markaasi halka markaad qofku uu yahay qof horay u haystay account Microsoft uga samaysnaa emailkiisa ama phone numberkiisa uu ku samaysnaa markaas u gelinaysaa haddii laakiin qofku qof cusub uu iska yahay waxaana una haysan waxaad dooranaysaa I don't have the personal sign information wax khabaar kama hayo qofka soo galaya ama qofkaas aan gelinayo information kiisi ama information qofka hore u lahaa oo Microsoft uu ku lahaa ma hayo marka account-ka awur baa lagu yeesano marka hadda halka hoose waxaad arkaysaa get a new email address cusub hadda samee ma doonaya isagana waxaan ku dhufanayaa kaliya add a user with a Microsoft account halka ayaynu kali ku siinaa haddana new ku dhufto halkaas new ah waa inaan email cusub ka samaysto Microsoft account kaasoo hadhowdii faa'iido u leeyahay waxa kamid ah hadhow markaad computer kala tagto oo halka imaado waad gashan kartaa for information ka kugu jiray iyo halkaas kaliya insha Allah marka ugu horeyn halkan waxa inoo qoran username-ka magaca isticmaalaha ayaa la doonaya marka waxaan baxsanayaa oo kale hawa ayaan soo bixinayaa halkaas enter password-kana waxaan soo bixinayaa misalan battery-kana soo gelinaya waxaan tijaabo leeyahay adiga hadhowdii tijaabsan kara okay halka marka hoose u furiso in case you forget your password hadii ilaa ka waran password infrastructure ka hadalado su'aal iyo jawaab saddex su'aalood iyo jawaab halkaas yaalo marka su'aalaha misalan tan ugu horeysa aan iska dooranaya markaan doorto waxaan answerka ka dhiganayaa waxaan iloobi yani ima qasam ma inaan su'aasha xifdiyo inaan su'aalaha loo macquul waa laakiin answerskan iska ogaanaya مثلا degmada ku dhalatay ama magaca hooyada oo kale ama walax aad iloobin ama iskuulka dhigato ama jaamacadda dhigato waxaad iloobin aad ku markaas aad gashanaysaa misalan marka waxaan gashanayaa oo kale tiro waxaan gashanayaa 1998 oo kale halkan haddana waxa leeyahay security question 2 dooro haddana waxaan gelinayaa 1998 ugu jawaabaya haddana sidoo kale haddana waxaan dooranayaa midka saddexaad waxaan u jaabayaa 1998 kadib waxaan leeyahay next marka next dhahno waxa halkaas waxa is ari doontaa waad ku furan yahay yani anigu furan yahay marka halka waxaan arkaynaa in halka inoo soo gashay hawa marka hawa intaan ka helayaa ma ogaan karaa in hawa ay account markaan soo daray uu soo galaysaa halkii waa ku laabanaysaa oo startiga halka ku laabatay dabadeed halkii geeskii u baa tagi doontaa halka marka dhimka computerka start garayso halkaas xawaaya ku soo ama xitaa halkaas bakarada ku dhifo markaan bakar ku dhifana kaas koram xaqin in xawaaya naga soo baxday hadda ma doonayo inaan xiro sababtoo aan xiro waa intaas oo recording ko iga jarmo marka sidaas ay soo gashanaysaa qaybta marka xigta aan doonayo inaan yara muhiimka ah waxay tahay account-ka hadda xawaanu bixiyay in ka bedeli karaa magaca uma kala bixi karaa haa u bixin kartaa maxaan welinaa marka hadii maanta halka ay ku qoran tahay type to search waa search box-ka
halkaas waxaan ku qorayaa control panel korba igala soo baxay control panel meeshan control panelku waa halka taleefankaad isticmaalayso settingska booska settingska iyo computerka ku jira yani ya booska settingska mobilka iyo computerka ugu jira control panelka marka control panelku saan kugu soo baxo horta inaad ka bedeli karto ayaa la doonayaa asagana halkaas baa tegaysa view baa ay ku qoran tahay small icons kaas iska bedeli kartaa waxa wax kartaa large icons kaas ayaa kugu soo baxay ama waad iska bedeli kartaa in hadda nooca aan doonayo ilaa kan weli ma ahan kana mar u baahanahay kaasna mar u baahanta laakiin hadda kan doonayo waa view baa ku laabanaya large waan ka tirayaa waxaan ku bedelayaa categories si waxay isku leeyihiin isugu kay aad iyo group uu sameey marka halka ay ku qoran tahay user accounts ayaan hoos tagayaa hoos markaysan change account tag halkaas ayaan klik ku siinayaa dabeedna halka yes baan leeyahay markaan yes dhaa kadib xawaadi aan sameeyno waa markaysan xawaadi ayaan sameeyno waa tan magaca kan oo aniga hore u isticmaalay waa user account kaygi ana iska leekan laakiin kan waa mid ka dhacay sameeyay marka ka xawaada oo kale ayaan klik ku siinaya markaan klik ku sii dabadeed waxaan doonaynaa waxa magaca soo bedela Soomaan marka klikka ku sii soo xir sida u soo soco halka maxaa arkaysaa change the account name halka markaan klik ku siinaya markaan klik ku sii dabadeed new account name ayaan halkaas ku qoray misalan xawaa oo kale aan ka bedelayaa waxaan u bixinayaa Muhammad oo kale ayaan u bixinayaa moha isaga qor kadibna waxaan leeyahay change the name ama change name marka halkii xawaa markaysan maxaa aan ku bedelnay moha ayaan ku bedelnay next waxa xiga aan u baahanahay waxa weeye hadana qodobka saddexaad oo asna muhiimka ah waan aragnay sida loo sameeyo local account cusub localka hadaan u baahdo magaca sida looga bedelayaa sidoo kale waxaan fiirinaynaa bal passwordka localka passwordkiisa si u bedelaysaa sidoo kale waxaan tagnaa control panel hadana waxaan ku qoraynaa yani waxaan tagnaa search boxka waxaan ku qoraynaa control panel kii dib ugu laabanayna halka markaynu dib ugu laabano kadib isla sida haduu category ku sare category soo saaro user account type yaalkii oo baan furaynaa kaliya marka dib u soo laabano hadana waxaan dooranayaa local account ama user ka aan doonayo inaan ka bedelo passwordka marka kan ayaan doortay inaan ka bedelo password hadaa waxa magac soo bedelayo soo imikana waa password si loo bedelo marka halka hoos imaanaysa halka daa change the account name oo ahaa waxa tigaysaa change the password halkaas aad klik ku siinaysaa new password halkaas gelinaysaa marka new password new password waxaan ka dhiganayaa oo kale tusaale ahaan bakar ayaan iska qornayaa hadda ninkan u baahan yahay dhalid garay doonaa bakar halkaas sidoo kale password intiga waxaan ku qoranayaa magaca oo kale aan iska qornayaa isna moha oo kale kadib waxaan la change password marka passwordkiisa sidaas aan ku bedelay magaciisa sidaas aan ku bedelay waxa inoo xiga marka akoonka marka hadaan u baahnayn oo aan doonayo inaan iska delete gareeyo maxaan sameeyaa iska delete gareystaad u baahato inaad iska tirtirto akoonka waxaad yeeli doontaa isla meesha ku soo laabo control panelkii ku soo noqo dabadeed waxaad yeeli doontaa inaad ka doorato change account type halka hadda weeye halka yes iska leh akoonka aad doonayso iska delete gareyso waa ka moha ayaan rabaa inaan delete gareeyo halkan marka waxaan imaanayaa ku qoran tahay delete the account delete the account halkaas ayaan klik ku siinayaa markaan klik ku siiyo wuxuu leeyahay haddii aad delete gareyso waxaad ogaanaysaa in waxa ku jira account-kani desktop-ka yaala documents-ka favorites-ka music pictures dhammaantood inay bixi doonaan ogow waxaas oo dhan waa ogaanaya marka waxaan leeyahay marka laba midkood waxaas oo dhan way bixi doonaan delete fileska dhan ama failashaas koo delete ama account-ka delete laakiin failasha hay marka waxaan leeyahay dhammaan delete garee oo fileska dhan iga tirtir marka sidaas ayuu ku bixi doonaa asana haddii alla idmaayo marka casharkeenan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa casharka xiga ayay noo noqon doontaa wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.